kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaan kusoo dhawaada wararkii u dambeeyay ee ka soo baxaya weeraradii xooganaa ay shalay al-shabaab kusoo qaaday fadhiisimaha ciidamada liyu booliska ay xadka Soomaaliya ay la wadaagaan ay ku leeyihiin waxaana la soo sheegayaa in qaar ka mid ah xarakada al-shabaab ay ku dhex dhuumaalaysanayaan deegaanada xadkaasi ku dhow waxaana la sheegayaa in ciidamadii ee halkaasi ku sugnaa ay gargaar xoogan ka heleen ciidamo aad u tiro badan oo loo soo diray oo soo dirtay dawladda sidoo kalena waxaa la sheegayaa in gabi ahaanba haatanba ay ciidamada liyu booliska ay la wareegeen guud ahaan xarakada al-shabaab qaybihii ay horay ula wareegeen ay dagaalka weerarka ah kula wareegeen sidoo kalena waxaa la soo sheegayaa in haatanba kooxda al-shabaab qaarkood ay gabi ahaanba ay dib ugu laabteen gobolka Bakool oo xadkaasi ay horay uga soo tallaabeen sidoo kale waxaynu eegi doonaa sida ay ugu suurtagashay al-shabaab in ay gabi ahaanba uga soo tallaabto xadka Soomaaliya aynu u soo tallaabto dhanka Itoobiya ayna sidoo kale fadhiisimaha ay lahaayeen liyu booliska ay ka barakiciyeen iyo sida ay xaalku hadda uu marayo qodobadaas iyo qodobo kale aynu halkan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe noo saar marka hore asxaabtaadana la sii wadaag markale soo dhawaada saaxiibayaal haddii aynu ku bilaawno weerar xoogan ay maalinnimadii shalay ahayd waxa soo qaaday kooxda argagixisada ee al-shabaab waxayna ka soo tallaabeen xadka ay la wadaageen Soomaaliya ee Bakool ayagoo u soo tallaabay xadka Itoobiya halkaasina waxa ku sugnaa ciidamada Soomaaliyeed liyu booliska halkaasi oo ay iyaguba si lama filaan ah kaga war heleen weerar xoogan oo xabadihiisa wata oo isdawamarin iyo sidoo kalena weeraradaasi ay soo qaadayeen xarakada al-shabaab isla markiiba kooxaha al-shabaab ayaa gabi ahaanba waxa ay barakiciyeen ciidamada liyu booliska oo markii horeba aynu filanaynin weerarkan waxayna la wareegeen xadka Ataayo iyo sidoo kale xadad kale oo kala duwan ay ku sugnaayeen ciidamada liyu booliska balse kadib ciidamada liyu booliska oo dib u gurasho xoogan sameeyay ayaa iyaguna weerar kale ku soo qaaday xarakada al-shabaab kadib markii ay la wareegeen xadadkaasi waxa ayna gabi ahaanba ay kaga saareen goobihii ay al-shabaab haysteen dib ayayna u qabsadeen xadadkii ay horay uga baxeen ciidamada liyu booliska balse ciidamada liyu booliska oo gargaar xoogan isla markiiba ka helay ciidamo ay soo direen dawladda ayaa halkaasi waxa yimaaday ciidamo aad u tiro badan balse xarakada al-shabaab qaarkood ayaa dib ugu laabtay xadkii ay ka soo laabteen ay ka soo tallaabeen aan iraahday sidoo kalena qaarkood ayaa gudaha deegaanada u galay waxaana la sheegayaa in ciidamada liyu booliska ay gabi ahaanba square ay ka qabteen sidoo kalena qaarkood ay xarakada al-shabaab ay ku dhex jiraan deegaanada ayna ku dhex dhuumaalaysanayaan waxaana haatan baa la sheegay in ciidamada liyu booliska ay gabi ahaanba ay iyagu haatanba ay la wareegeen sidoo kalena xadka ay iyagu hayaan waxaana la sheegay in qaarka ka mid ah ee al-shabaab ay ku dhex dhuumaalaysanaya deegaanada ay gabi ahaanba isaga soo baxaan halkaasi sidoo kalena waxa uu sheegay generaalkii ciidamadaasi hogaaminayay mar uu hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay gabi ahaanba ay qaybihii laga baxayay lagana soo galayay ay iyagu ku sugan yihiin ciidamada liyu booliska ay haatanba inta ka hartay xarakada al-shabaab ay si nolol ah ay ku qaban karaan ama hadii kale ay isa soo dhiibaan oo baaq ugu diray haddaba markii dagaaladaasi xoogan ee dhaceen isla markiiba waxa la jaray isgaarsiinaysay Soomaaliya iyo sidoo kale tan Itoobiya waxaana halkaasi ka cadaatay in aynan la sheegi karin waxyaabaha halkaasi ka socdo sidoo kalena la heli karin warar xaqiiqooyinka ku saleysan walow dadka abraha bulshada ka hadla ay wali sheegayaan in dagaaladu ay ka dhex socdaan deegaanada dhexdeeda ayna ka dhex dagaalamayaan xarakada al-shabaab balse arintani ayaa noqonaysa mid aanan la xaqiijin karin maadaama halkaasi ay ciidamada liyu booliska sheegeen in isgaarsiintu ay jaran tahay sidoo kalena laga heli karin xog xaqiiqada ku saleysan balse goobtaasi oo ay booqdeen wariyaal ayaa fiidiyoyo ay ka soo duubeen generaaladii halkaasi ku kala sugnaa waxa ay sheegeen in haatanba
uusan wax dagaal ah halkaasi ka soconin sidoo kalena qaar ka mid ah xarakada al-shabaabna halkaasina ku dhex dhuumaalaysanayaan balse ay dhifeysyo ku jiraan aysan weli aynan bilaabin dagaalo ama weeraro ama sidoo kaleba xabado aysan ridaynin balse halkaasi waxaa ka cad in dagaalka halkaasi ka socday 24 saacadood ku dambeeyay ee ku dhex maray xarakada al-shabaab iyo liyu booliska uu gabi ahaanba saacadooyin oo kaliya uu socday sababta ay keentay in baraha bulshada ay beenta iyo sidoo kalena barabagandada ay bombooniyaan ayaa noqonaysa mid aan sax ahayn maadaama dadka inta badan doonayay in ay weeliyaan sidoo kalena shacabkana been u sheegaan ayna sheegay in ilaa haatanba uu dagaal halkaasi ka socdo balse arintaasi ayaa gabi ahaanba haatanba soo gabagabowday markii ay ciidamadu ay muuqaalo la wadaagayeen bulshada Soomaaliyeed dhanka kale ciidamada liyu booliska ayaa ah ciidamo aan loogu talagelin in xadkaasi ay fadhiistaan marka dastuurka dalka ama sidoo kale federalismka ee Ethiopia u yaala la eego waxaana loo baahan yahay in xadkaasi la dhigo ciidamada dawladda federaalka ee looma baahno in ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida ay halkaasi xadkaasi ilaaliyaan xadku sidiisaba waxa loogu talagalay ciidamo u tababaran dawladda federaalka Ethiopia in ay ilaaliyaan halka ciidamada liyu booliska iyaga loogu talagalay in ay ku jiraan kaliya gudaha magaalada balse haatanba ayaa waxa soo baxaya sababta keentay in ciidamada liyu booliska ay halkaasi fadhiisimaha ama xadkaasi ay ilaaliyaan maadaama la og yahay in dawladda federaalka looga baahan yahay xad waliba ay la leedahay wadan waliba in ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ee dimuqraadiyadda ka socda in ay halkaasi dhigaan balse arintaasi ayaan gabi ahaanba suurtagelin sidoo kalena ciidamada liyu booliska ayaa haatanba ciidamo aad u tiro badan lagu soo kordhiyay halkaasina waxaa ka cad in xadka iyo sidoo kale isku socodka labadaasi dal ee gabi ahaanba la xakameeyay ciidamada liyu booliskana ay haatanba ku soo yihiin xadkaasi ee qaybiya Soomaaliya iyo Ethiopia dhanka kale hadii aynu eegno sababaha keenay in xarakada al-shabaab ay u soo gudbaan xadka Ethiopia sidoo kalena qaar ka mid ah ciidamada liyu booliskana ay weerar ku qaadaan ayaa waxa sababaya sida la sheegay in ay liyu booliska halkaasi ku sugnaa ay gabi ahaanba markii horeba ay u diyaarsanayeen dagaal sidoo kalena xarakada al-shabaab maalmihii u dambeeyay ay doonayeen in xadkaasi ay ka talaabaan sidoo kalena deegaanada ku dhow xadkaasi ay gabi ahaanba la wareegaan oo iyagu ka taliyaan balse uma aysan suurtagelin maadaama weeraro xoogan ay kala kulmeen ciidamada liyu booliska sidoo kalena jab xoogan loo geystay waxaana la arkayay ciidamada oo gabi ahaanba la wareegay gabaari waaweyn ayna ka gubeen sidoo kalena qaybo ka mid ah xarakada al-shabaabna qaarkood ay jab xoogan halkaasi kala kulmeen oo gabi ahaanba dibna ay ugu laabteen gobolka Boqol oo xadkaasi ay markii horeba ay ka soo talaabeen haddaba waxaa la soo sheegayaa in ciidamada liyu booliska aysan jirin wax dhibaato weyn oo soo gaaray ama khasaare nafeed iyo sidoo kale khasaare dhaawacyo xoogan balse waxaa la xaqiijiyay in xarakada al-shabaab ee halkaasi ka soo